waxaanu halkan isugu nimi inaanu annagoo ah musharaxiinta maanta halkan ka muuqata kana wakiil ah kuwa kale oo naga maqan waxaanu halkan kaga dhawaaqaynaa inaanu sameynay isbahaysi siyaasadeed oo cusub oo la magac baxay musharaxiinta madaxweyne ee aragtida cusub kuna marka la soo gaabiyo maak waxaanu marka hore soo dhaweynaynaa go'aamadii ka soo baxay shirkii golaha wada tashiga qaranka ee la soo gunaaniday January 9keedii 2022 waxaanu isla markaa ka xunnahay xaaladda hubanti la'aanta ah ee dalkani ku sugnaa muddada dheer taasoo sabab ay u tahay nabadgelyo la'aan iyo jahawareerka siyaasadeed ee muddo dheer dalkan ragaadiyay markaanu in badan falanqaynay oo ka doodnay sidii dalkan loo samata bixin lahaa iyo sidii loo dhammaystiri lahaa doorashada qabyada ah iyo sida ugu dhaqsaha badan ee ay si nabadgelyo ah oo cadaalad ay ku salaysan tahay u dhici lahayd markaanu qiimaynay xaaladda aragnayna in dalkii ku socdo meel khatar ah haddaan doorasho dhicin dibna u eegnay wixii la soo maray iyo meesha dalkan laga keenay waxaanu isla garanay inaanaan noqon daawadayaal ka noqonin daawadayaal dhibaatooyinka socda ee aanu codkayaga ku biirino dadka dalkan wanaagiisa iyo horumarkiisa jecel sidaa awgeed waxaanu halkan idinkula wadaagaynaa talooyin iyo tilmaamo qeexan oo aanu u aragno samata bixinta dalkan oo dhaxalgal ah annagoo heshiiskii doorashooyinka ee golaha wada tashiga qaranka ay ku gaareen magaalada Muqdisho soo dhaweynaynaa waxaanu rajaynaynaa kuna adkaynaynaa mas'uuliyiinta qaranka inay adkeeyaan fulinta heshiiskaas kuna soo dhammaystiraan doorashada waqtigeedii loo asteeyay waxaanu ku boorinaynaa mas'uuliyiinta ugu sarreysa dalka inay dhowraan xasiloonida iyo amniga dalka isla markaana khilaafkooda uusan dhaafin meesha hadda uu marayo inta doorashadu ay dhammaanayso 3 waxaanu kula talinaynaa dowlad goboleedyada iyo dhammaan ciday khusayso in kuraastii la boobay lagu noqdo si cadaalad loo siman yahay ay muwaadiniintu u helaan oo aan qofna xaqiisa la duudsiin 4 shacbiga Soomaaliyeed guud ahaan waxaa la gudboon inay dowladnimadooda xuquuqdooda iyo nabadgelyodoodaba ilaashadaan oo aanay noqon daawadayaal ee ay xuquuqdooda nabadgelyo iyo tan noloshoodaba ay difaacdaan 5 dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah 75% hadduu yahay ciidan iyo hadduu yahay shacabba waa inaad la xisaabtan la timaadaan waa inaad codkiina iyo ficil ku muujisaan in dalkan aad nisbada u badan tihiin sidaa awgeedna aydaan ogolaan in dastuurka iyo hanaanka dowladnimo la majaxaabiyo ciidamada qalabka sida ee qaranku waa astaan qaran waa inay ilaaliyaan sharciga iyo waajibaadka dastuuriga ah ee saaran waa inay haybadii qarannimo ee waajibka ku ahayd dhowraan kana fogaadaan kumilanka siyaasadda ugu dambeyntii waxaanu beesha caalamka ugu mahadcelinaynaa taageerada joogtada ah dulqaadka iyo dadaalada kala duwan waxaanu ka codsanaynaa inay ka feejignaadaan in dhaqaalaha ay cashuur bixiyayaashooda bixiyaan aan xasiloonida dalkan iyo horumarkiisa lagu carqaladay wabillahi tawfiiq si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta